اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kelmadeydu waxay ku saabsan tahay waa in loo diyaar garoobo aakhiro. Sababtu maxaa yeelay adduunka ama dunidu waa laga tagayaa, la joogi maayo, loo dul sugnaan maayo, waa laga tagi. Marka haddii laga tagi, waa in aakhiro oo loo socdo oo loo yahay safar, waa in loo diyaar garoobo oo wax loo sii horumarsado taa weeyaan. Waa inaysan nakadin adduunka aan ka tagayna, waa inaysan nakadin oo na mashquulinin. Haddii na mashquulisa ama nakadisa, beri waan ka shalayn. beri waxaan dhihi rabbanaa qalabat calaynaa shaqatunaa wa kunnaa qawman dhaalin. Haddii na mashquulisa maanta, beri waxaan dhihi rabbigeenu waxaa naga adkaatay mashquulkeennii, waxaan ahaynay qoom dhunsan ayaan ahaynay. Rabbigow naga saar cadaabkan haddaan ku laabano ama na mashquulisa adduunka waxaan hadaalimin. Dembigaan na soo geliyay maanta cadaabkaaga haddaan beri ku laabano, mar dambe haddaan ku laabano, waxaan nahay dhaalimiin. Marka taa waxaa ka cad Ilaahay tabaaraka wa tacaalaa cadaabkiisa markaad la kulantaan ayaad ka shalaynaysaan. Adduunka haddii maanta na mashquuliyo, beri waad ka shalayn.